qoys ayaa waxay ku galeen wadanka Jarmalka si cajiib oo yaab leh waxa laga yaabaa inta badan in ay maqashid dad yani ayaa si sharci darro wax ku galeen wadan kale isla markii wax ku soo dhacay talow tahriibiyaal bay hayeen madoon bay ku galeen talow sidee ay ku galeen ma waxay sameeyeen talow soo dhawaada saaxiibayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u maleynayaa muddo 2 bilood ilaa 3 bilood wax muuqaal aan soo gelin intaas waxaan ku maqnaa is-update gareen iyo haddii mikrofon ahaan lahayd iyo haddii si kale ahaan lahaydba dib ayaan ugu soo noqday kanaalka hadda ayaan waxaan doonayaa in aan soo geliyo muuqaalo iyo barnaamijyo ka duwan kuwii hore dabcan kuwii hore waxay noo ahaan jireen hal xalaqad inaan uga hadalno hal barnaamij laakiin caawa wixii laga bilaabo waxaan uga hadli doonaa yani barnaamijyo ah inaan soo qaadano dhacdooyinkii markaas ugu yani yaabka badnaa asbuucaas ama asbuuc ku xigay maalmahaas waxyaalaha adduunka ugu yaabka badnaa ee dhacay ee dunida daafiyada saxaafaddu ay ka qortay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad kanaalka hore ugu taxaneed fadlan like saar haddii aad hadda ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar haddaba aan bilaabno barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa arrin yaab leh oo ay qortay CNN Travel CNN Travel ayaa waxay qortay dhacdadan gabar ayaa sanadkii 2005 waxay dalxiis u aaday wadanka Talyaaniga gabadhaas waxay ahayd gabadh Kanadiyaana dabcan qofku markuu aado dalxiis wadanka uu tago wuxuu tagaa goobihiisa taariikhiga ah meelo badan ayuu soo marmaraa dabcan waa qof damaashaad dalxiis ku jira gabadhii waxay tagtay madxaf ku yaalay mid ka mid ah magaalooyinka wadanka Talyaaniga dabcan madaxifta iyo waxa loo tagaa in qofku uu soo arko waxyaalaha taariikhiga ah yani waxyaalo yani qofka ka yaabiya inuu soo arko gabadhii madxafka markay tagtay gabadhii waxay ka soo xaday madxafka dhagaxaan taariikhi oo qaaliya oo meel yaalay dhala ku jira ay soo xaday waxay la aaday wadankeedii Canada gabadhan ayaa waxay soo celisay dhagaxaantii 2020 yani sanadkan hadda ku jirno waa 15 sano kadib dhacdada ay gabadhan soo celisay ayaa waxay tiri dhagaxaanta markii aan qaatay 2005 ilaa iyo 2020 sano noloshaydii waxay noqotay hoog iyo halaag iyo balaayo aniga waxay ku dhacay bay tiri kansarka naasaha qoyskeena waxa ku dhacay bay tiri fakhri iyo gaajo iyo dhaqaale xumo waxay tiri nasiibkayga oo dhan baa xumaaday madxafkan Talyaaniga ku yaala ayaa sanad walba waxa loo soo celiyaa waxyaalo qaaliyo oo taariikhiya iyagoo ay dadku ku sheegayaan in ay markii ay xadeen ay kala soo kulmeen balaayo iyo hoog iyo halaag dhacdadan waxa qortay sidaas u jeedaan CNN Travel waxay kamid ahayd yani waxyaalihii maalmihii u dambeeyay warbaahinta caalamka ay qortay ee yaabka lahaa haddana waa dhacdo kale oo warbaahintu ay qortay oo iyaduna yaab leh bal hadda aan aadno wadanka Shiinaha shirkad ku taalo wadanka Shiinaha ayaa shaqaalaheedii oo dhan 4116 wax ku wada saftay gawaari sababta ayaa waxay ahayd shirkadan ayaa waxay dhigatay 5 sano qorshe ah sanad walba yani dabcan qorshe ayay dhiganaysa qorshahaas ay ku guuleysanaysay yani qorshe intaas oo inaan faa'iidno khasaaraha oo inaan iska ilaalino waxaas oo inaan sameeyno 5 sano oo isku xigta ayay waxay ku guuleysatay qorshihii ay dhigatay shirkadana waxa u soo xarooday faa'iidooyin aad u tiro badan shirkadan ayaa waxay sameysay 4116 shaqaalaha kamid ah ayay waxay wada siisay gawaari farta ay ka wada saartay mid kasta waxay u ballan qaaday 5 sano oo soo socota insurance-ga iyo yani caymiska gawaaridaas saaran in ay iyadu dabari doonto shirkadan ayaa wax uga baxday lacag dhan 74 milyan dabcan inta badan waxa ku naqaanaa shirkadaha markay wax faa'iido weyn markay faa'iidaan dadka saamiyaasha kule iyo dadka shirkadda iskale ayaa bangiga ku shubtaa shaqaaluhuna shaqadooda ay wataan iyagoo qaadanaya lacag lagu heshiiyay shirkaddu markuu khasaaro la kulantana waxay sameeyaan in ay shaqaalaha qayb kamid ah ay yareeyaan oo ay ceyriyaan ama mishaarka ay ka yareeyaan shaqaalihii wada jooga shirkaddan laakiin si ay u dhiirigeliso shaqaalaheeda waxay sameysay arrin cajiiba gawaari ayay siisay dabcan waxay tusaysaa qofka shaqaalaha ah oo shirkadda ka shaqeeya maanta inuu shirkadda wax ka leeyahay faa'iido iyo khasaaraba shaqadiisa ayuuna sii laba jibaaraya horay ayuuna shirkadda u sii riixaya oo u sii socodsiinaya shirkaddan ayaa ku soo bandhigtay xaflad ay ku guddoonsiinayso shaqaalaheeda oo si qurux badan loo duubay bal aan isla daawano xafladan gawaarida quruxda badan ayaad u jeedaan shirkaddii ayaa siisay shaqaalaheedii يعني دون والبا كاميرا لوغا قبانيا ساد u jeedaan waxaana gawaariya yani free ayaa lagu siiyay shaqaalaha ka shaqeeya meeshaas iyo shirkadaas wallahi waa cajiib shiineesku waa cajiib way shiineesku waa dad cajiiba dhanka shaqada waa
balaayo ku qaban balaayo. haddana aan u gudubno dhacdo kale oo yaab leh oo isla asbuucan aan ku jirno ay qortay saxaafadda Talyaaniga. laba gabdhood ayaa waxay ka wada shaqeynayeen shirkad ku taala Talyaaniga. dabadeed shirkadii ayaa waxay damacday in ay shaqaalaha yareyso. dabcan waayadan dambe aan ku jirno adduunyada dhaqaale xumo ayaa soo wajahday, hadday noqon lahayd dhanka corona kowka iyo dhaqaale xumo kale oo iska baahsan. shirkadii waxay damacday in ay shaqaalaheeda yareyso si ay wax iskugu celceliso. marka laba gabdhood ayaa waxay ka shaqeyn jireen isku meel. marka labadan gabdhood mid ka mid ah ayaa la cayrinayaa haddii ay dhacdo shirkadu in ay shaqaalaheeda yareyso. laba gabdhood saaxiibo ayay ahaayeen. gabar baa waxay samaysay arrin yaab leh haddana naxdin leh. markii inta bareega markii la soo baxo ee la qaxweynayo, gabar ayaa gabadha kale waxay ugu dartaa qaxwaha ama shaaxa mukhadaraad si ay u hurdooto, u caajisnaato, u wareersanaato. dabcan wayna dhacda. gabadhan qaxwaha markii ay ugu darto gabadha kale mukhadaraadka, shaqadii ayaa lagu noqdaa. gabadhan markaasi waxay bilowdaa lulmo iyo caajis iyo in shaqada sidii loogu talagalay ay u gudan weydo. gabadhan kale waxay doonaysay in ay indhaha maamulka shirkadda kusoo jeediso gabadhan, oo haddii ay noqoto labadan gabdhood waa khasab midkood in la cayriyo. ay gabadhaas hurda ee daroogaysan, dabcan ayada ma ogan, laakiin xanuun kale ayay u qabtaa inay qabto, la cayriyo. fasax baa la galay. gabadhii maadaama ay qaxwihii joojintii ay joojisay, qaxwo cabitaanka ay joojisay, fasax baa la galay. gabadhii caadi ayay kusoo noqotay, dhakhtar ayay u tagtay. dhakhtarkii ayaa u sheegay in yacni qaxwaha iyo wax ay cabto ay si wax ka yihiin, bal in ay waayo qaxwaha joojiso. gabadhii qaxwaha ayay joojisay gebi ahaanba, waxayna kusoo noqotay si caadiya. shaqadii ayaa lagu noqday haddana. gabadhii kale ay soo wada fadhiisteen maalin. koobkii qaxwaha ee loo soo dhigay ayay haaf ka cabtay. waxayna dareentay wareerkii iyo dhulla wareegii iyo madax xanuunkii iyo caajiskii wixii bay dareentay. haafkii kale qaaday, booliiska ay u geysay, waa la soo baaray. waxaa la ogaaday in qaxwahan uu ku jiro daroogo. arrintii ayaa la baaray. gabadhii kale ee la shaqeynaysa ayaa la ogaaday. gabadhii kale waxaa lagu xukumay muddo 4 sano. dabcan wallahi waa arrin yaab leh. yacni qof kale si shaqada looga cayriyo ayay gabadhan qaxwaha waxay ugu dartay daroogo. gabadhii kale hadda muddo 4 sano ayaa lagu xukumay dembiga ay samaysay daraadeed. arrintan ayaa waxaa qortay asbuucan aan ku jirno warbaahinta Talyaaniga. waxaana soo xigtay qaybo badan oo ka mid ah warbaahinta caalamka. wallahi waa arrin yaab la weeye. yacni anugu markii aan akhriyay barnaamijkaas waaba la yaabayba. yacni qofka kale ayuu wuxuu u dhibayaa si shaqada looga celiyo uu asagu usoo haro. wallahi waa yaab weeye. bini aadamka wax kasta ayaa ka suurtooba. waa cajiib wallahi. dhacdada yaab kale ee u dambaysa ayaan barnaamijka kusoo xidhi doona ayaa waxay tahay qoys ayaa waxay ku galeen waddanka Jarmalka si cajiib leh oo yaab leh. waxaa laga yaabaa inta badan in aad maqashid dad yacni ayaa si sharci darra wax ku galeen waddan kale, isla markii wax kugu soo dhacayo talow ma tahriibiyaal bay ahaayeen, ma doon bay ku galeen, talow sidee ayay ku galeen, ma maxay sameeyeen talow. qoys u dhashay waddanka Ciraaq oo ka kooban hooyo iyo aabe iyo 2 carruur ay dhaleen ayaa waxay ku noolaayeen Turkiga. Istanbul ayay joogeen. waxay dabceen in ay waddanka Jarmalka aadaan. dabcan ma aysan sameyn sida ay dad badan sameeyaan. Greega maysan marin, maysan yacni naftooda khatar maysan gelin. dhanka kale dee marka aan si u fiirino qoyskan qoys lacag leh ayuu ahaa. markii aan sheekada aan gudagalno ayaan ka ogaan doonaa. qoyskan ayaa markii hore waxay samaysteen baasaboorro diblomaasiya oo been abuura. dabadeedna diyaaradda ayay waxay ku kireysteen, diyaaradaha yararka oo yacni sida khaaska loo kireysto ayay waxay ku kireysteen lacag dhan 77,000. waa 4 qof yacni. way duuleen, waxay ka degeen garoonka Munich ee ku yaala Jarmalka. yacni ilaa hadda waa dad ah diblomaasiyiin oo kaale iska arag oo cajiib ah. garoonkii markay tageen boorsooyinkoodii ayay jiiteen si yaroo reer bagaalnimo ah. meeshii waxay tageen yacni lasii maro dadka yacni VIP da dad meel gaar ayay maraan, dadka diblomaasiyiinta iyo dadka shacabka meeshay maraan. waxaa la hadlay mid ka mid ah shaqaalihii garoonka. markaasay dadkan hadli waayeen. yacni dadkan luuqad kale maysan garanayn, aan luuqadda carabiga ahayn. ingiriis maysan garanayn, waddanka ay soo aadeen Jarmal ah maysan garanayn luuqadiisa. nag way hadli waayeen. waa laga shakiyey, dib baa loo baaray. war maxaa leedihiin baa leeyahay, maxaa leedihiin oo see waxay ka yihiin hadlatiin diblomaasiyiin ugu yaraan luuqad kale ku hadla aan luuqadiin ahayn. nag qoyskii waa hadli waayey. wixii baa la baaray, booliiska ayaa baaray, waa isla xiriiray, barnaamijkii ayaa la baaray. waxaa la soo ogaaday dadkan in ay yihiin dad qaxootiya oo sidaan cajiibka waddanka Jarmalka ku soo galay. mar dambe ayay sheegeen in ay yihiin dad qaxootiya laftirkoodu oo ay Ciraaq ka yimaadeen oo dhibaatooyin ay soo haysatay oo Turkiga ay soo joogeen. waa la qabtay, waxaa la geeyey xero la geeyo dadka sida sharci darrada waddanka ku soo gala. waxaan filayaa haddii ay aqoon lahaayeen
luuqadaha looga baahan yahay in iyagoo boostooyinkooda jiidanaya ay garoonka bixi lahaayeen oo diblomaasiyiin hadhowna howlahooda ay sii wadan lahaayeen haddii sii safriyaan iyo haddii joogayaanba. aad iyo aad ayaa umahadsantihiin saaxiibayaal. xalqadan oo kooban waxaan ugu talagalnay in aan barnaamijkan aan soo wadno, aan ku bilowno yacni dhacdooyinka ugu yaabka badan ee saxaafaddu ay qorto asbuucaas ee dunida daafaheeda ka dhaca. yacni dunida daafaheeda waxa ka dhaco oo dhan hal mar ma soo sheegi karno. dunidan aan ku noolnahay wax cajiib ayaa ka dhaca maalin kasta, laakiin waxooda ugu waaweyn ee ugu yaabka badan ee saxaafaddu ay qorto ayaan isku dayi doonaa habeen ka mid a asbuuca in aan soo gudbino oo aan soo gelino kanaalkeenan Yamyam Plus.